laba sano kadib qaraxii Soobe wali waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba qaba sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka ku dhawaad 200 oo qof ayaan wali nolol iyo geeri lagu hayn qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo film qaado u ahaa VOA sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaas sii wada joogeen wariyaheena magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle Cabduqaadir ayaan weydiiyay waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo Falastiin marka la fiiriyo 14 Oktoobar 2 sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalin waqti dambe galabkaas ahayd saddexdii iyo 15 kadib xaaladdu waxay isku bedeshay xaalad adag oo murugo badan marka loo eego musiibadii dhacday guud ahaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nafwaayeen boqolaalkan waxyeello ay ka soo gaartay aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cusub ay ka soo gaareen oo miir daboolmay ama gale xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudaheed waxyaabaha xanuunka badan dhaca waxaa ka mid ah in saaxiibkii ugu dhawaa dadka markaas aan wada joogno wada taagneyn shaqa wadaagga ahayn kaadamaankeygii ahaa dadka dhintoo kamid ah Anuur Sayd Axmed dad kaloo ila joogay saaxiibo kale ayaa iyana qaarkood dhintay qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay Sucdi Daahir Deeriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii Soobe Sucdi waxa aan weydiiyay bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu uu ahaa runtii anaga muddo 5 bilood iyo maalmo ahaan wadni hawsha gurmadka waxyaabaha ugu daran ee la kulmayna waxaa ka mid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aan ku ogeyn dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen oo ilaa hadda aanu ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray dad waxaa arkaysaa maaragtay plastic wejiyadooda ama la geliyey xubno kamida jirkooda dad maskaxdooda qeyb kamida wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo xusuustii ay ka dhintay caruurtoodii iyo xaasaskoodii aanan kala garanaynin waxyaabaha iigu murugada badnaayay kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo nin tusaale ahaan 2 caruura ka tegay 3 kamid xaasaskiisa ay xaamilo ahaayeen caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan xaalad yacni aan la qiyaasi karin aan lagu sii talagelin ayay ahayd qarxii ka dhacay 14 Oktoobar dad badan ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay dadka dhinteen ilaaha u naxariisto laakiin dadka dhaawaca ah ilaa haddeertaan u baahan gurmadka u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo oo ilaa haddeertaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ka haysataa runtii aniga iigu murugo badan oo ilaa haddeertaan aan ka walwalaa tabar ahaana aan ahayn dad isbixin kara xagga immigrationka wadanka Turkigana caqabad ayaa ka haysatay inay wadanka dib ugu laabtaan wayna ku qasbayna baahiyaa jirta in dadkaas loo celiyo tusaale ahaan dadkii qeybo kamida maskaxdooda halkaas looga soo tegay oo xusuusta ay ka maqneed oo qasab tahay in la celsho sidoo kale dadka jirkooda balastiga uu ku jira ayagana kamid ah oo baahi qaba in loo celiyo dadka iyagana saas oo kale agoomihii ay ka dhinteen waalidiin waxaa jira ayagana aan agoomo looga dhiman laakiin curadadoodii iyo dad noocaasi ku waayeen qaraxa Soobe oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ee duqii Muqdisho Taabid Cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo isbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi waxa aan Taabid weydiiyay bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa farshin wad mahadsan tahay qaraxii 14 Soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda Soomaaliyeed maalinta ku habsatay aan runtii dareenkayga ma cabiri karo maalintaas sida ay ahayd falka wuxuusnimada ee arxan laawayaasha argagixisada ay ummadda Soomaaliyeed u geysteen maalintaas mid aan dareenkayga ku cabiri karo hal iyo laba ma jirto aad bay u xanuun badneed
laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma ahan laakiin waxaa kugu filan markii meesha aan tagay waxa igu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii sawiran karan isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya caruurtiina waalidkooda la waalidkiina caruurtooda la iyo sidoo kale dad la garan waayay gebi ahaanba wax ka xanuun badan ma jiro iska badaayay burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan laakiin waxa aan iga go-ayn waa intaa oo ummadda soomaaliyeed musiibada maalintaa ku habsatay oo argagixisada u geysatay qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof waxaana jira dad badan oo weli ay ku yaalaan dhaawacyo biskooda iyo kuwa aan biskoonin oo jir ahaan iyo maskax ahaanba ay u dareemayaan waa kan waryaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agaarka Soobe inkastoo aan ka kabtay dhaawacyadii soo gaaray 2 sano ka hor inkastoo meelaha qaar weli ay jiraan muuqashada dhaawacyadaasi haddana waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka Soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ah saameynayso oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaaga hareerahayga fiiriyo marka loo eego duruuftii meesha ka dhacday xaaladii adkeyd marka waa xaalad mar walba oo aan joogo Muqdisho gaar ahaan iskuulka Soobe maskaxdayda ku weyn oo igu soo laabato xanuunkanigii gaaray dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayey iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirane waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhammaan doonin intaan noolahay Falastiin qaraxaasi kadib ayaa waxaa jiray talooyin iyo tallaabooyin dhinaca ammaanka iyo adeegyada masiibooyinka oo laga wada hadlay waa kan gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo udubdhaxaad u ahaa howlihii gurmadka iyo gargaarka ee masiibadii Soobe oo ka waramaya ka maamul ahaan tallaabooyinkii xilligaasi ay qaadeen marka hore horta musiibo noocaas oo kale marka ay dhacdo waa in wax laga bartaa waxyaabaha laga baran karo ayaa waxay hoos imaanayaan qaybta cadaaladda ah cadaaladda dadka badanaa inta badan waxay fiiriyaan in dambiilihii dhibka geystay in la soo qabto oo ciqaabta sharciga uu mudnaan la marsiiyo waa la yaqaanaa dambiilaha waa argagixisada al-shabaab balse aan ciqaabtii ay mudnaayeen lama marsiin haddii aan taa qayb kale usii gudbo cadaaladda waxaa ka mid ah in la abuuro oo ay dadka filan karaan dhibkaa gaaray in la abuuro jawi nabdoon oo xasilan oo lagu damaanad qaadi kara mar kale inaysan soo laaban waxaan taa ku xusayaa marka casharada laga bartaa waxaa ka mid ahayd warbixin ay soo saareen guddiga taakulaynta iyo gurmadka qaran ee markaa la aasaasay musiibada marka ay dhacdaa waxaa ka mid ahayd in la sameeyo xarun degdeg ah oo heer qaran ama heer gobolka Banaadir ah oo la tacaasho dhibaatadaas soo dhacday markii annaga aan xafiiska joognay labada qodob ee aan aadka diiradda u saarnay waxay ahayd energy gurmad qaran inaan la dayicin anigoo u mahadcelinay ilaahayna ajir ha ka siiyo gurmad qaran cid kastoo ka qayb qaadatay in aan la dayicin oo la sameeyo xarun gurmad qaran iyo shaqaalo u tababaran masiibo ilaahay ma keeno nooca oo kale hadday dhacdo si ay ula tacaalaan iyo sidoo kale bangiga dhiig iyo waxyaabihii la halmaalay oo xarun gurmad degdeg hoos iman lahayd qodobka labaad ee diiradda aan saarnay oo shirarka caalamiga iyo midka amniga gudaha markasta aan ku dhehayna waxay ahayd in hanaanka amniga sida magaalada Muqdisho hanaankeeda amniga uu u degsan yahay in aysan suurtagal ahayn in amni lagu sugo maadaama masiibo intaa la eg ay dhacday ka horna cod dheer baan ku dhahaynay in amniga gobolka Banaadir lagu soo wareejiyo si hanaan daadegsan loogu sameeyo amnigu maahan meesha kore meesha hoos uu kasoo bilowdaa oo la daadejiyo marka labadaas qodob ayaan diiradda saaraynay iskuulka Soobe ayaa ah mid ay dadka iyo gaadiidkuba aad ugu badan yihiin ka hor iyo kadib qaraxii Soobaba waxaanay u baahan tahay in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladduba ay wax ka qabtaan saxmadda faraha badan ee isgoyskaasi si looga gaashaanto masiibo la mid ah tii Soobe sida ay sharxayso Suucdi Daahir oo kamid ahayd guddiga gurmadka qaran wallahi horta waxyaabaha ugu muhiimsan aniga intaan gurmadka joogay waxyaabaha igu la cajaa'ibka badnaa waxaa kamid ah ummadda Soomaaliyeed dad waxa weeyaan aad isugu gurmata muddo 3 bilood qiyaastii aan ku qiyaasay 5 milyan oo lacaga ayaa ummadda Soomaaliyeed kasoo xarootay marka laga reebo dawladda Soomaaliya iyo Djibouti oo 1 milyan dhiiban 3 kale ummadda Soomaaliyeed ka imaaday gaar ahaan dadka qurba joogta ah
aada runtii usoo dadaaleen dhalinyaradii iyo haweenka ugu sii badnaa dadka soo gurmada saacad walba soo hadlay lacagaha soo diray waxa ugu horeeya horta laga barto in dadka soomaaliyeed ay isku gurmadaan arrinta kalena loo baahan yahay in laga taxadirana waa xagga amnigana dawladda iskale inay iyada isku farqaanto areadii wax ka dhaceen meelaha ugu mashquulka badan waaye magaalada muqdisho una baahan in istaraatiijiyad loo sameeyo meelahaas waayo wadanku waa xirxiran yahay hal wadaa la isugu yimid wadadaasna waa wadadii ay wax ka dhaceen haddii hadda ilaahay naguma keena wax dhacaanna intii dhacday inka badanaa lasii filan karaa kasakow masiibadaasi xanuunkii ay dad badani ku reebtay haddana dadka soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku nool ayaa muujiyey isku duubni iyo garab istaag iyagoo kaalmo nooc walba ah u fidiyey dadkii ku dhibaatoobay masiibadii Soobe sida uu sharxayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi. waxaan rabaa dadka inaan la wadaago musiibo way nagu dhacday laakiin maalintaa waxaan ka baranay midnimada ummadda Soomaaliyeed ishir ahaan ummadda Soomaaliyeed inay mid noqotay oo ay marqaati u tahay gabadhii buskut ka soo dhiibtay magaalada Boosaaso iyo dadkii xerooyinka Dhadhaab iyo Kaakuma ku jiray iyo Soomaalida qurbaha ku wada nool oo meel kasto caalamka wada jooga ilaa Australia oo u wada istaagay in mid ay u noqdaan oo dadka aysan maalinta dhibka kali ku noqon dadkii Soomaaliyeed weli way joogaan welina Soomaaliya ummadaas Ilaahay ayuu mar walba ku bixin doonaa 2 sano kadib masiibadii qaraxii Soobe weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan qasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi